shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Gabiley ayaa maanta kulan ay yeesheen ugu baroordiiqaya baandulihii guutada 17aad ee ciidanka qaranka Somaliland Maxamed Yuusuf Awrabax oo gacan ka gardaran ay ku dishay deegaanka Qorilugud shacabkan oo tiiraanayna oo wajigooda ay ka muuqatay sida ay ugu xun yihiin sarkaalka ka baxay gobolka Gabiley oo isagu waa sarkaal aan bedelkiisa la heli karin isla markaana u tababarnaa si heer sare ah kana mid ah saraakiishii lagu soo tababaray dalka Ethiopia haddaba shacabka kulanka yeeshay ayaa xukuumadda baaq adag u diray waxayna yiraahdeen anagu ragga geystay falka sarkaalka maanta dhintay waa kii saddexaad ee gobolka ka soo jeeda ee gacan ku dhacdo ee la dilo waxaanu leenahay sharciga la hor keeno cidii waxa samaysay iyo raggii shirkadda ku ahaa waxa halkan iskugu nimin karo diiqda labada inan ee gobolka laga dilay waxaan u sheegaynaa dawladda inamada la dilay ee TV laga sheegin aan cid soo hadal qaadin waxaan u sheegaynaa dawladda inay si sharciga waafaqsan cidii dishay noo horkeeno madaxweynaha waxaan u leenahay sidaan ugu caanalisnay nooguma dambeey waayo in saraakiisheeda la laayay dadkii laayayna noo horkeentay ragii ka dambeeyay ama ninkii dilka geystay waxaan u oran lahaa 24 saacadood gudahood hadii keen waayeen jawaab degdeg ah inuu ka bixino sababtoo ah shakhsiga ciidanka qaranku xeer gaar u leeyahay shakhsigu hadii wax dilo qoriga taago nin haduu rasaas rido oo qorigiisa taagu barta istaago wax dilo loo geysanay ma jirto maxkamadda la soo taaga laakiin ninka nin toogtay laba talaabay si daba dhiga waxa sharcigu dhigay in barta lagu toogto sababta loo toogan waayo hadda maxay tahay waa assassination loogu tala galay ilaa iyo min buuhoodla ilaa min madaxtooyada dawladdu waxaan leeyahay ninka lagu dhex dilay ciidan dhexdeed waliba ninkii haysay taliyaha ahaa meesha iyo ninkii abaanduulaha ku xigayba meesha lagu dilay intii askari ee ku wareegsaneed waxay qabanayeen iyo goortu baxsanay waxa lagu dhuftay 6 xabadood Maxamed Yuusuf Allah naxariiste 6 xabadood lagu dhufanay meesha ay taagnaayeen waxaas askari talaabada laga qaadi waayay kulli waxaas leeyahay wax la isla ogaa waxaynu hore u gasbanay baa maanta ay nahayeen wax kale dheeraadayna ma hayo waxaynu gasbanay ayaa ay nahayeen dawladda Soomaaliyeed magaceeda maqasheena halkii laga dhisay halkan ay ahayd halkii wax ka noqotayna halkan ay ahayd halkii ka jirtaa maanta halkan weeyaan marka xaq baa loo yeeshay in kala xabad la magala daalo kala aan shacabka musharaad isku dafo on darqeysno xaq baa loo yeelay laakiin maanta tiimaha Allahu akbar marka horeysa balortaynameedena dhinteerta faataxada loo maro الله يرحم الراحمين إلهي ونحرسته إنت أنا كأنا إلهي سمري ما أنا كسيو وين نصمر دونا وين نصاع عرسني بلا هذا وين نصاع عرسني ما هذا حبة السومال أنا وصف فيسنا قبل هذا قلبيت وصف فيسنا لما قبل قلبيت كسوت شيء وصف فيسنا عدة وصف فيسنا هنا وصف هنا نقاري وصف هنا وحوالينا العدو يسكع علينا ما هاي نديت كان نديب له وصف عليه أرتوا حاران إن مرة والله يرادون وحلاقات اللي قبل هذا قلبيت هذا waxaan xukuumadda u sheegaynaa inay 24 saacadood gudahood jawaab degdeg ah ka soo bixiso dilka marxuumka si degdeg ah haddii jawaab uga soo bixin weydo waxaan ugu aragnaa anaguna kabtan kale aan ugu aragnaa haddii aan la yiraahdo kabtan kale aan ugu aragnaa waxa loo kala tagi maayo loogana kala dhaqaaqi maayo xukuumadda waxaan u sheegaynaa inay 24 saac gudahood kaga soo jawaabto Allahu akbar horta waxaan ii sheegayaa dhalinyartina reer Gabiley ama dadweynaha reer Gabiley maanta in mujaahidka maanta inaga dhintay xusidii naga mudan yahay mar walba mujaahidkaas waxa aan qarannimada aad u jecel ay ku mudan tahay waxa uu aan dareensan calankan inuu dhiig iyo dhilo ku taagan yahay duwi ma calanka oran mayno taasma afkeen way calanka ragbu naga qaba dareenka mujaahidkan uu ku mudnaa calankaas inaan mar qura dhulka taabanin waxa uu halkaan taagnaa waxa waxa calan ee gobol u taagnaa waxayna si yeelaynin maanta walaalkan waan ka samir karnaa hadii uu ku dhinto gacan cadaawe soo ku jira qarankiisa ama calankiisa oo dagaalamaya waa samir karnaa maanta walaalkan inaga ma dhinteen hadii uu gacan cadaawe maanta uu ku dhinto laakiin waxa maanta ay andaraa inuu ku dhinto gacanta isla qaranka uu dagaalamayo hoostiisa in calankii lagu dilo 300 nin dhexdood wali وجعفر عول هرري كالسن TV مقالة Gabiley